بسم الله الرحمن الرحيم waxaan noo suurta gashay inaan kulan la yeelano gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna ku simaha gudoomiyaha xisbigaasi wadani mudane Axmed Muumin Said isla markaana aan wax ka weydiino su'aalo door ah oo maanta xaaladda dalka uu marayo ugu horreyn balina waxaan gudoomiyaha wax ka weydiinay gudoomiye barnaamij waran Said u aragtaa ka xisbiga mucaarad ahaan wadani ahaan xayiraadii uu ka qaaday dowladda Ingiriiska ka qaaday muwaadiniinteeda gaar ahaan magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa oo kaliya inay iman karaan بسم الله الرحمن الرحيم تتعاد حيرات laga qaaday labada magaalo runtii waa arin aad u muhiim ah waa arin u soo korodhay muxuu ahay dalkeena reer Somaliland laakiin dal quraynu nahay Somaliland baynu nahay runtii taa soo dhaweynaa laakiin marka loo eego dalkeena magaalooyinka waaweyn waxaynu leenahay magaalooyin badan oo waaweyn sida Burco Boorama Gabiley Ayargaawo meel kasta waxa marka lama oran karo runtii dalkeena qaar muxuu ahay barbina wadada ka jirta lama oran karo marka dhammaan dalkeena waa wada nabadgeliyo marka in laba magaalo oo kaliya Ingiriisku calaamadeeya waxay noqonaysaa waxoogaa dabacsan badan oo dadaal la dawladda dadaal weedo waxaan leeyahay waa in xukuumaddu ku dadaashaa in dalka gabigiisaba muxuu ahay inuu yahay dal nabadgeliyo maanta wax dhibaato ka taagan oo laba magaalo la calaamadeeyay in maanta ka taagan dalkeena Somaliland walxamdulillah ilaahay nasiib nabadgeliyo aynu nabadgelyadiina aynu ku jirno laakiin gudoomiye dadka raawada loo kaliya looma qabanay shirka waxa loo qabto xitaa ku jirta odayada dhaqameedka gobolka Maroodijeex awdal iyo salad baleesugu keenay marka waxa leedahay saddexdaas oo dhanba waxay ka wada raadinaysaa taageero doorashooyinka soo socda aan waxaan islahay waqti maanta la arkaysan shirkii xisbiga kulmiye waa ka dhawaan qarsoomaya isagana xaaladiisa wad la socotaan markaas daraadid waxaan u maleynayaa dawladdu inay taageero raadinayso ma arkayo wax kale dhibaato maanta halkan ka taageerayna jirin ugu dambeyntii gudoomiye adiga la fahantaada waad ka hadashay arrinta ka taagan kastanka loo yacdo iyo ashacado marar badanna waa la arkaa dadka cabasho ka soo yeeriso xukuumaddu si arrintaasi waliba ku dhaliilan tahay ayaa la leeyahay inay ka jawaabi weyd ka dareen celin weydo dalabka shacabkeeda dareenkaas oo dib ma qabtaa hawaan qabaa oo waxa weeyaan runtii kastanka loo yacdo iyo halka ayaa ashacado dhibaatada maanta ka haysata dadka safarka ee reer Djibouti ee reer Awdal u dhashay Somaliland oo dhan u dhashay kama jiro dalkeena geeyiga Somaliland oo dhan kama jiro waana wax runtii aad looga xumaado oo wax laga tiiraayoodo waxyaabaha xalay iyo shalay aan maqlaynay maaha wixii dawladdu ku kacaysay hada waxa la soo sheegayaa in dad in baabuurtii soo socotay baabuurta qaarkood dad diroolintii la laayo dhaawacii oo kooma ku jiro loo yacdiyay yaa la soo sheegay waxa la soo sheegayaa dumarkii lamaana ee 10 caruurta watay markay tiraahdo santu baasaboor ma haysto ama ay tiraahdo waxa ma haysto leeyahay intaas oo lacag dibadna markay taa wax lacag ma hayo leeyahay caruurtaada kan yar hanala sii joogo intaad keenaysa lacagta waxa loo yacdo waxa ka taagan wax geeyiga Somaliland oo dhig ka taagan maaha mana garanayaan xukuumadda Somaliland ee waliba sidaay madaxweynaha maanta ka yahay waxay dadka shacabka reer Awdal diba mar walba Awdal kaliya lama oran karo waxa weeyaan Somaliland oo dhan ba soo martay meesha laakiin dadkan dhibaataysan maalin kasta cabanaya arrinka madaxweynaha waa laga hadlay salaadiinta gobolka way ka hadleen wax garadku way ka hadleen wasiiradu way ka hadleen xildhibaano way ka hadleen madaxweynuhu dhowr jeer uu ballan qaaday maalintii u dambeysay sidaay halka yimid markii ka horeysay safarka wadi intaba uu ballan qaaday ilaa imika dawladdu dhigay ka furustaa arrinka sababta kaliftay inay arrinka wax ka qaban weydana ma garanayno waxaasna wax kale maaha waxaan kastanka waxa jooga dad maalintii dalkan ay soo nabadgelyadiisa la soo go'aansku la soo noqday la geeyay oo aan la bedelin oo wax weyn isku shaandhayntu waxay ku ka tahay inuu qofku dadaalo inuu qofku sameeyo soo dhaweynta dadka inuu qofku u naxariisto dadkiisa laakiin hadduu qofku arko meeshan inuu isagu leeyahay cidna uga kama haybis cidna ama kama qaadan dhibaatada meesha ka taagan dawladdan maanta jirta dhigay ka faruusatay waxa ka fureysatay shicibkuna way ku dhab qabaan ilaa xashalina wad arkayseen gaadiidkii way bixi waayeen maanta qora Djibouti waxa Djibouti ka soo baxay ma jiro wax imika baxayana ma jiro sababtoo waxa weeyaan ma mari karayaan dadka wadadii marka waxaan ugu baaqayaa dawladda Axmed Siiraayo hadduu telefishinka daawado madaxweynuhu
waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada halkaa ka taagan si degdega guddi loogu daro in arrintaa la xalliyo